walax asaga iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa oo ku maamuli karo waa ka weyn tahay waqtigii fursada loo sii inuu ku maamulana waa ka soo dhammaaday meeshaasaan rabaa taas inaan dhigno ragga mas-uuliyiinta ee dowlad goboleedyada madaxweynayaasha ka ah waxaan ugu baaqaynaa in ay fududeeyaan ka soo qayb galaan shirkaas lagu baaqay prime ministerku uu ku baaqay la isugu yimaado laga tashado once for all ma hal mar laga tashado aan dib loogu noqon si dhammaystiran arrintaas muxuu ahaayey inay u dhammaato waxaan rabaa inaan ayadana qodobka aan ka dhawaajiyo shalay dabaaldegii ciidanka booliska Soomaaliya hadda ka hor hadaladayda waxaa ka mid ahaa jirtay madaxweynuhu sidii ruuxaantii oo kale dadka soo dhaxadla warka shalay meeshaas qudbooyinka laga jeediyey midda farmaajo intentionkiisa ahayd midda mursal jeediye waaye midda farmaajo jeediye maaha maxamed mursal dalkan hadda ka hor uu khatar geliyey extension غير sharci oo aan jirin ku dhawaaqay qatar u galay dalkan waa ognahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala awoodiisa iyo dad mas'uuliyiin ah oo u damqanaya dalkan ayaa looga badbaaday qatartaas waa ogtihiin si sharci darro ah oo qawaaniinta iyo dastuurka aan waafaqsanayn ayuu 2 sano extension u ansixiyay shalay oo cid la qabtay cid ku raacsan ee cid sharciyad u soo maray min aanay jirin shalay warkiisa tiyo kala hadana ka muuqato waa ka digaynaa wadadaas wada la mara ma aha waa xiran tahay golaha shacabka waqtigiisa dhamaaday oo xildhibaanadii golaha shacabka ay qaarkood ay siritaran noqdeen oo kuwa kuraastii ay waayeen oo banaanka ay mareen oo bedelkoodii waa la doortay leeyahay taagtaagan yihiin maanta in la yiraahdo baarlamaanka jiraan shirinaynaan isu keenina labada aqal ee baarlamaanka ka koobma hadii mid jiro maanta aqalka sare jira golaha shacabka xaaladiisu waa saas mursal albaabkaas waa xiran yahay maxamed mursalow dhinac la aadamaha sanadkii hore ilaahay ku ceeb asturay hadda ha u noqonin bisha abril ee sanadkan bilowgiisa ayaa ilaahay ku ceeb asturay ha u noqon wada la mara ma aha qatar waaye kulama wadaagayo afkaaga erayada ka soo baxaya farmaajo ama asagoo ha rabo ama ha ku soo dirsado ama asaga ha ka timaado ama wuxuu doonaa noqday farmaajo afkiisa ku dhaxdo waxa uu rabo shalay warka maxamed mursal uu yiri iyo warka xal farmaajo soo qoraya isle baarlamaankii yaa joogo loo yeerayaa iyo waa dhacay xilligii doorashada waa dhamaaday December uu ku egyahay iyo waxa soo dhan cid dadka Soomaaliyeed inay aqri waayaan waxaas macquul ma aha anana maxamed mursal wadadaas ka joogo farmaajo shalow ku hoday mar kale iyo ku hodin ma soconayso dadka Soomaaliyeed ma aqbalayaan hortiis jira waayay dalkan wada aan ahayn wadadaas dimuqraadiyadda uma furna jamhuuriyadda saddexaad ee carta ka soo bilaabatay ilaa maanta waa qorsu dhiib xilli ay leedahay xilligeeday ku qabsoomaysay dadaalada maalmo iyo bilo iyo dil ula dhici kareen laakiin sanada hadda soo wareegtay in haddana la sii wado sanad kale ee waa la sii joogaya la yiraahdo albaabada dhanna maalin walba midkii furmi tagaba la soo oodo macquul ma aha fursadda meeshaasay jirtaa aad iyo aad ayaan ugu kalsanahay golahaas wadatashay qaran in ay mas'uuliyadoodu gudan doonaan oo maxaan ku raadaa baaq ra'iisul wasaare oo ku baaqa shirka ay aqbali doonaan imaan doonaan wixii khaldanna ay sixi doonaan inay isku yimaadeen isu soo hor fadhiistaan cibaado ma aha waa inay wax saxaan waan rajaynaynaa wixii qaldamay in la saxo wadadana saas ay doorashada ku dhamaato muddo kooban xaaladan dalkan kuma sii sugnaa karo haddaan dhinacaas taas uga baxo oo dhinaca amniga iyo security-ga u yeerto dhowr mar horena waa ku celin ninna kuma amri karo sarkaalow waxaan sharciga waafaqsanayn qof walba qawaaniinta iyo shuruucda lagu heshiiyaa ka weyn janan lagaa dhigyaa adoo shalay askari ahayd iyo maxaan ku yiraahdaa abaalmarin kale meel kale lagu waxeeyaa iyo adigoo maxaan ku yiraahdaa baagamuudaha jidka joogi jiray diblomaasiya tahay lagu yiriyaaba macnaheedu maaha inaad dalkaana adiga mas'uuliyadiisa qoorta gashan kartid dadka waxa ayaan daranaa la yiraahdaa aakhira ninkii cadaab ku mutaysta
dembi uu nin kale daraadiis u galay dembiga adiga gashay ilaahay kugula xisaabtamo waaba la gartaba laakiin nin kale daraadiis inaa u dambaawdid waa meesha ugu dadnimada ugu liidata war yaan dad kale loo dambaabayna dalkana ha loo turo ummaddanna annagaa mas-uuliyaddeedii iyo ummadnimadeedii iyo hoggaankeedii soo doonanay oo u taagan kuwa maanta shalay haye iyo kuwa maanta u socdaana waa isku mid dalka mas-uulaa laga wada yahay qofna mas-uul uma aha dalka siduu raba inuu ka yeelo wuxuu mas-uul ugu yahay wixii lagu doortay qawaaniintii iyo lawaaixidii inuu ku hogaamiyo haddii la iska waayana arrin la iska aqbali doono ma ahan xaaladda dalka meeshaasay maray meeshaasaanan la jecelnahay waxaanan rajaynaynaa 24 saac ee soo socdo shirkaasi inuu muxuu ah ifafaariisa ay noqdaan ay hore u socdaan maanta la joogo waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo kusoo gunaado midowga murashaxiinta hortabintiisa koobaad ama prioritigiisa koobaad waxa waaye doorasho dalkan inay ka dhacdo si nabada ku dhacdo doorasho la aqbali karo wada ogol ah inay dhacdo waaye haddii la waayo maxaa dhacayo taas waa uun hawl kala waaye maalinteedana waa ka hadli doona haddii aad iyo aad u mahadsantihiin